عشاق بوح سمي قرمذوب أنبطن للنتوي إسبيرسو بلنتينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا من رب دنيا كجوكتانا فيديو مو وناكسن أما لين مو وناكسن حلو ولبا يا وقت ولبا يدين تكون صار هذا برامج كني دنيا دار لعجها كيف تكارن سيران كفرق جرني أفراد سافرتي زديد دي صعبة مريان وحودا كوكولنا وعلى يسدف صرنا عرفتي التكنولوجيا دا بلوك تشين كيف تكارن سيران حوران تدي جويد ذكر دون قد بضح عاوة أما ما أنت نكسو قادم دورنا برامج كنا دنيا دارنا عكربتدا وحاي نقانا يانو قرابل in dhowr coin aanu isla wada fiirino idinkuna aad nala aragtaan sanadkan 2023 oo ah sanad kala guur uu dunida ka jiro dhul dhaqaale siyaasad iyo bini aadam fara badan oo dunidan si global ahaana nidaamkii globalizationka loo oran jiray ku wada dhaqmi jiro si aad u kala sikanayana uu fooda noo soo hayo sanadkanne kaalin weyn waxyaabahaasi uu dhaqaale ahaan dunida uu ka qaadanayo haddana crypto kaalin weyn waxay ka qaadataa duni aan iyaduna ah mid aan la kala furfuri karin oo cid hor istaagi kartana ay hor jirin ayay iyaduna dhex orodaa dunidaas crypto ay dhex orodo waxay u baahan tahay iyada naftigeeda bal sanadkan inaanu qiimeyno qaybo fara badan waaqaca ay dhulka kala haysataa qaybo badan leh dunida iyada ayaa hormuud u noqon karta nidaam aan cidna cidiga kale uusan ka furi karin inay hormuud u noqoto waxaana jeclahay dhowr coin in aanu iskula falaqayno idinkuna aad falaqaysaan oo aad aragtaan anagu kulliba dhowr xabo ilaa iyo 12 xabo ka mid ah ayaanu isha ku haynaa qaarkood waa sii gadgadanaynaa qaarkoodna weli kuwii hore ayay nooga mid yihiinoo budkii 2022 nagula dhacay qaybo ka mid ah waxaanu haynaa dib u sii gadashadooda ana saaxiibkiin siidkooda dhahayo haddii nagu cusub tahay like subscribe share adiga bani markaa gadna anaga wax badan ayayna naga saacidi karaysaa soo gudbinta barnaamijkani waxaa kaalin weyn ka qaato noo fududeeyey yegsi oo ah company aad awoodi karaysa adiga oo qaarada afrika ku nool gaar ahaan bariga afrika in aad soo gasho suuqa lacagaha cryptocurrency-ga kana baxdo adiga oo aan la kulmin wax dhibaato ah sakanada aad soo galaysay iyo sakanada aad ka baxaysana taabashada ama soo degsashada applicationka yegsi oo qora uu ka xigo awoodi karanaya lacagtaadu intay lagu dhihi lahaa bangigay taala lacagana kaaga rabna in adiguba aad noqon karto bangi lugaynayo dollarkaadii aad ku haysan karayso oo teleefankaada oo ay kuu fududayn karayso yegsi soo fiiri nasiibkaadana bal ka eg oo dhihi kartaa bal suuq sameeyaasha caalamiga ma ka mid noqon karaaho anoo jooga Soomaaliya sariirteedii la jiifa ama geedkayga hoostiisa ma awoodaa inaan suuqa dunida qiimo coin qiimida coinanka aan wax ka bedelo oo dhaho anaa coinkan qiimahaas ku rabee qofkaanu iiga rabin ha iga tago suuquna ku yimaado lagu yiraahdo warniyo ninkaas warkiisaan yeelno suuqa meeshaas uu qabtay haddaba yaanan arrimahaas ku daalinay bal aanu fiirino coinanka aanu isdhihi karayno sanadkan waxba isbedelaya number 1 waxa uu noqonayaa oo kama hadlaan ah mar walbana taagan oo un bitcoin waan dareemi karayno fursada aad u qaali ah in sanadkan mar kale aanu ka helnay macquulna ay tahay fursadihii ugu qaalisanay ee la helo sanadyada fooda nagu soo socda in sanadkan bitcoin uu nasiin karayo awoodna aad u yeelan karto allaha ka dhigay $10 ba ee gacantaadu ay xafidi karto in bitcoin ay ku dhacdo sanadkan daqiiqadii ay doonto xilliga ay ku dhacayso ha noqotee haddaanu kasoo tagno 22 milyan oo 18 milyan suuqa dhex wareegaysa iyo jajab isla markaana qiimahan aan arki karaynay eriyada 20 uu 7 kan ama xilligan aan duubayno uu ka agdhow yahaba ama 22 afkeeda hore ayuu jooga suuqa waa tegi doonaa eriyadeeda in uu soo dhaco waa macquul oo orodkan xoogaa dhaqaaqa ah waxoogaa muddo iska koobanoo dhinaca trade-ka ay tahay welina waaqicii siyaasadeed iyo dhaqaale ee dunidu uu isku cakiran yahay kaasoon wax yar kala sikanne dhaqaaqa suuqu kalsooni fiican dad fara badan aysan ku qabin coinka labaad waa ethereum isaga naftigiisu platformada dhinaca dunida gameka hogaaminaya isaga naftigiisu biyo kama dhibcaan coinanka ah ee suuqa yaalana ka mid ah
oo isaguna dhinaca dunida game aan iraahdo smart contractyada iyo waxyaabahaasi iyo dhinaca markay noqoto Shanghai upgradekiisa uu soo socdo isla markaana dunidan dhinaca smart contractyada weli hormuudkeeda ah inkastoo la taagan yahay dhinaciisa stakinka waxbaa ka jiro balse isbedela ayuu yeelan karaa oo fursado ayaa ka soo bixi karaya isaga naftigiisu qaali ah oo u baahan in isha aad ku hayso isla markaana dayaceedu uusan kaa noqon mid agtaada ciyaarka ah kan kale waxaa noo noqonayaa dhinaca dunida waxaan kala qaadaynaa asxaabay labadaas haday noo kala aan bitcoin iyo ethereum ka soo tagno platformyada smart contractga ama goobaha heshiisyada bini'aadamku ku dhex mara ee wax lagu dul qorto ama coinanka lagu dul dhisto dii luqada afka Soomaaliga ama matalayaasha lagu dul dhisto coin lagu dul dhisto gaar noqda coinanka matalayaasha lagu dul dhisto iyo platformyada dhaha meeshaan matalayaasha lagu dul dhistay matalayaasha ma xamili karaan oo macnaheedu yahay platformyada smart contractga la yiraahdo ama layer 1ka darajada koowaad coinanka ku jiro markay noqoto ama xirmada dhinaca basasha wareega koowaad ka jooga waxay u baahan yihiin wareegyada hoose gudaha ku jiro haddii ay aad u soo weynaadaan xirinta kore ee basashu way dildilacdaa oo waxa xub dhacsataan dhaxnaa marka layer 2yadu waxa ay matalaan ubaca meeshaas ka soo baxaya maadaama uu weynaanayo waxa la isku dhaafsanaya xawaarahooda iyo bini'aadamka gudaha ku dhaqmaya ay balaaranayaan platformyo kala jiro layer 2 aan hadhaho qafaskii labaadaan naho annaga wax weyn u sii qaadayna una kordhinayna xawaaraha in bini'aadamku waqti hore wax isku dhaafsado kana raqiisisan ufashka weyn ee nagu gadaamanay layerka koowaad ee weyn ee wanka ah kaas waa goni dunida qiyaaliga ah ama dunida metaversiga loo yaqaano oo iyaduna kaalin weyn ka qaadan doonta sanadada fooda nagu soo haya iyo sanadkan qaybihiisa dambaba goobaha aan isdhihi karno asxaab fara badan haddii eebba uga qadaro in ay gacmahooda dhunkadaan oo nasiib fiican ay ka heli karayaan intii lacagtoodu beriga ay ku dhiman lahaydne inta faa'iido ay uga soo saarayso 2023 iyo inaanu fiirino dunidan bedeli doonta ama web3ga la yiraahdo ama casriga internetka iyo sida wax loo daalacdo wax ka bedelaysa duni waxaanu soo marnay serveradu iska yihiin in kuwa adag xaaladoodu ay soo adkaayeen waxaanu soo marnay duni Google iyo Facebook iyo Amazon iyo hormuud iyo serveradii duni waxaanu soconaa qof waliba uu yahay computerkiisu qayb ka mid ah servero uu awoodi karayo inuu isticmaalo in computerkiisa uu qof kale oo dunida ku nool wax ku kaydsado isagana wixii uusan aqri karin laakiin qofkaas uu ijaar uga qaadan karo isla markaana ama uu ku saacidi karo ugana fiican dunida kale markay noqoto ee Amazon iyo Google oo haddii albaabada loo xirto waxaadii ay yihiin albaaba xirmay taas marka dunida web3ga ayaa la yiraahdaa iyo dunida loo socdo waxaad u fara badan oo horumar bini'aadamka oo ah faa'iidana oo ah in bini'aadamku wax badan is dhaafsado dad fara badan kalsooni xumada haysatana ay baaba'do ayaa iman karaysa oo suuq cusub oo weji cusub leh iyo goob cusub oo dunidu hamigeedu yahay in la gaaro ayay kiribta hogaaminaysaa waxaana la yiraahdaa dalacashada saddexaad ama web3ga qaybtaas iyana qayba ayaan ka fiiri doonaa hadda bitcoin iyo ethereum waxa uu ka mid yahay dunida wax isdhaafsiga bini'aadamku inay wax isdhaafsadaan smart contractyada hormuudka oo ahay waana layer 1ka coinanka ayuu ka mid yahay Cardano ayaa ka mid ah isaga naftigiisu dunida layer 1ka waxa ka mid ah Polkadot isaga naftigiisu waxa kaloo ka mid ah Solana iminka xaaladiisu buuqay ka yara taaganto weli aan meel ay fadhiiso aysan jirin FTM ayaa ka mid ah dunida layer 1ka layer 2gana soo gala isaga naftigiisu iyo coinan kale aad u fara badan hadda marka waxaanu leenahay bal Cardano waxaanu ka soo qaadanaynaa dunidiisaas layer 1ka iyo dunidiisan kale cusub ee iminka uu dhisaya ee dhinaca smart contractyadiisan ay 2023 banaanka imaanayo qayb ka mid ah
volter upgradekiisa layer 2 ahaan iyagana u wato oo xawaarihiisu iminka bayska koowaad ee qafaskii hoos ee weynaybo uu ka shaqaynayo in layer 2 uu noqon karayo xawaarihiisu ay qaadmi karayaan isla markaana waxyaaba aad u fara badan iyo system decentralizer oo aad u tiro badan uu kasoo dhex socdo coinka kale wuxuu noo noqon karayaa kaas haddii aad taqaaneen waxay noqonaysaa inaan halkan noo tago si aanu u aragno mid walbo magaciisa idinkuna aad u dalacan karaysaan algoron ayaanu soo qaadanayna isaga naftigiisa oo aan isleenahay sanadkan wax badan ayay fursado kasoo bixi karayaan maadaama hay-ado aada u fara badan iyo bangiyo galbeedka uu ka mid yahay bangiga dhexe ee wadanka talyaaniga oo kamid ah bangiyadii kaalin weyn ka qaatay in lacagtii shilinka Soomaaliya lacagtii leerada markaan kasoo hamleynaa taariikh ayuu ku leeyahay bangiga dhexe ee talyaanigu nidaamkii bangiga Soomaaliya uu u shaqayn jiray dadkii dhidobada u aasan way kamid ahaayeen administrationkiisa dhisay maadaama gumaysigiinu ahay isla markaana wax fara badan ayaa nagala dhexeeya asxaabtaas laakiin hadda ayagii ayaa inta usoo guuro taagan oo sheekada Yurubiyaaka biicdal waaye CDBC Central Bank Digital Currency-geena buuqa ka taagan ama smart contract algorona aanu aadnaaho halkaas ay wax nooga soo baxaan ay asxaabtu iyaguna halkan ay ka taagan yihiin oo aan ka arki karayna marka waxaan isleeyahay coinkan isaga naftigiisu fursad ayaa nooga soo socoto janisna noqon karta sanadkan isla markaana duni waxa uu qabaa isaga naftigiisu sports iyo waxyaaba aad u fara badan oo la isdhihi karo janisyadu weli halkan way kasoo dilaaci karaan smart contract iyo waxaasna leh waana coin dhinaca stakingka systemkiisu yahay wadamada fara badan oo European oo waaweyn iminka ay gacmaha la galayaan coinka labaad wuxuu noo noqonayaa ama saddexaad ba hadaan dhaho inaan noo xisaabsanay noqonee laakiin dhowr ay coin waayo oo tiro badan kulleybo agteeda maatigu noo noqon karaa oon isleeyahay fursadaadu ballaaran ayuu samayn karayaa sanadkan markay noqoto dhinaca layer 2 coinanka ah ee hogaaminayo platformyadan dhinaca layer 2ga matic layer 2ga waa lagula dagaalami karaa waxaana jiri kara oo soo bixi kara coinan kale oo ka culculus isaga naftigiisu in fursado ay bixiyaan laakiin laga yaabo in ay qaali noqon karayaan ama qiimahoodu qiimaha matic uu joogo qaarna ay ka hoosay karaan kana hormari karaan dhinaca gainka marka la yiraahdo waxaa la tartami karaya coinankan la yiraahdo immutable x iyo optimism kan isaga naftigiisu kan weyn uu ka qaadana dhinaca markay noqoto isaga hadda noo soo hormara optimism aan naga qaldaamaleena kan optimism maaha wakana optimism coinkan layer 2ga ayuu hogaaminayaa fursadana weli waa ay ka jiraan waxay u baahan marka dunida layer 2ga ah inaan isku xirxirno idinku laba saddex aad ka dhax bixisaan istiraadaan saddexdan way u qalantaa optimism development-giis waa u socdaa howlaha fara badan way socdaan iron rob ahaan oo coin ku yimid oo fair launching ah siyaabo kala duwan iron robkiisa loo bixiyaa kuwa weli inay dhiman yihiin ay macquul tahay una baahan research fiican in lagu sameeyo maadaama laba jeer ay sameeyeen saddex jeer inay heedna aanu malaynayo in arrintaas ay dhacaysay immutable x isaga naftigiisu waa coin kale oo fursadii ay kasoo bixi karto dhinaca layer 2gana ka dagaalama isla markaana aan isleeyahay kambanigii kale ee game oo nimankan waxaa la yidhahdaa game station qola kale waxaa jirta wall street ah oo arrimaha gameka ka shaqey jirto hadda ka asxaabul kiribta ahayd oo lagu xasuusan jiray wall street shortkoodii dhalinyaradii samayn jiray in coinkan iyo coin kale oo isagana dhinaca layer 2ga ay tartan kula jiraan labadabana ay doonayaan inay wax ku dul dhistaan dib ayaad u fiiri karaysaan isaga naftigiisu BNB isaga naftigiisu waa uu ka mid yahay layer 1nada kala duwan ee dhinaca smart contract oo fursadii ay ka imaan karto 2023 ilaa iyo 400 ilaa iyo 700 iyo jajab fursad ahna in laga helo ay macquul tahay naftigeedu marka ayadana isha inaan ku hayna ayay u banaanaysaa oo dhinaca platformkii smart contract-yada bitcoin ando ethereum cardano algo BNB
iyo waxayna noqonaysaa coinan kale oo isaga naftigooda smart contract laakiin luuqluuqyo kale iyo meelo kale sii gelgeli doono oo aan hore usii wadi doono waxaan ku xijinaynaa markaan oo kale maana dunida dhinaca metaversiga ama dunidan dhinaca markay noqoto qiyaaliga oo isaga naftigiisu fursado ay kasoo bixi karayaan una baahan in aydun isha ku haysaan 2023 bilaha dambe in fursado dhinaca trade-ka aanu ka heli karayno haddii suuqu bilahan 6 bilood ee hore isbedelada iyo buuqa jira ka dhammaanshiyahoodu uu noo bilaaban karayo 6 bilood ee dambe gaar ahaan 3 bilood ugu sii dambaysa sanadka inta aan la gelin iyo dhamaadkeedaba in jaanisyo suuqu una sii kara fursadane aanu ka wada heli karayno dhammaan coinankan imika aan idin la wadaagay isla markaana uun ama 2x iyo ka badan boqaar ay daabici karaan haddii eebe noo qadaro sandbox ayaa isagana wuxuu noo ahaan doonaa bal jane linki waxaan malaynaa xoogaa sanadkan weli xaalka maadaama uu si fiican u fadhin the sand isaga naftigiisu fursada dhinaca ayaan ka heli karaynaa trade ilaa 2023 kan fadhi karno trade dheera qaatay oo hebel waxaa laakiin waxaan maanta iyo biri iyo bishaan intii ka dhamaanayso idilbo waxba muhiim aha in hadda aad bilowdo inaad sii gadato buuq fara badan aa jiro ilaa iyo bisha 3aad bartamaheeda intaa la gaarin waxaan walaaq fara badan ayaa imaanaya fursado trade oo qura dadka maadada tradingka yaqaana ay ka bixi karaan ay suuqa xaaladiisu yara gelgeli karayaa waxaadna samayn karaysaa suuqu markuu soo dego oo qiimo macquul oo dib u bilowdo in aad la qabsan karayso jaanisyo fiican aad ka wada heli karayso coinkan hadda qiimaad ku arkaysin qiimo ka raqisan inaad ku hesho ay macquul tahay waa haddii ay dhacdo sidaan isleenahay ma naqaano waxa garanti imaan doono waxa aan isleenahay soo celcelintu marka xaalka hadda la fiiriyo jawigu se wax u socdo ma wanaagsana waxaa kaloo kamid ah marka FTM oo isaga naftigiisu coinanka dhinaca smart contract-yada layatuuga qayb ka salka la gala ayaa kamid ah sanadkii hore 2022 dhaawaca culus ayaa gaaray 2020 dhaqaaq fiican isagoo bilaabi rabo buuq dhexe ayaa yimid oo ka dhasha laakiin waxbahaas oo dhan way isu soo dhaqdhaqaaqmeen waxayna noqoto uun gabagabadii in communitygii FTM ay isu imaadaanoo dib hawshii 2020 la waday barteedii haddana laga sii bilaabo taas waxayna siisay kalsooni ah in FTM mar kale uu soo noqon karayo oo buuqa hadda Solana ka jiro oo kale inkastoo uu ka yara duwan yahay kan Solana oo dhaqaale ahaan xitaa Solana buuq uu ka jiro nidaamkiisa laakiin jainkiisa markay noqoto maxaa la yiraahdaa Solana blockchain kan saga naftigiisu jiha kale uu yahay reer FTM waa ay ka rajo wanaagsan yihiin markay noqoto jaanis ahaan in dib ay usoo rogaal celiyaan oo xitaa area dollar agtiisa dib marka looga heli karayo fursad ah na uu bixi karayo ama guushii laga sugayay 2021 ilaa iyo 2022 ee dhuntay dib marka la soo celi karo fursado ay ka banaan yihiin waxaa sidaas oo kale jira coin kale oo wave la yiraahdo gamem iyo platformyada fara badan smart contract ayaa ku dhex dhisan isaga naftigiisu fursada ayaa dib looga heli karaya maadaama nidaamkiisii dhinaca USD waxaa ku dhex dhisnay algorithm coin ah oo stable coin ah oo qaab kale hadda ay u bedeleen buuq fara badanna uu ka jiray leverage xad dhaafa iyo dhaawacyo kalena ay gaareen oo dhinaca traders iyo market makers is haysta ay kalifayeen in suuqyada qamaarka lagu soo cadaabay taas waxay kaliftay in ninkii sameeyay coinka iyo community-ga la isu imaado kadibna ayba noqotaba in la gaaro heer la yiraahdo war coinkan maba loo sameynba suuq qamaaro maxaa noo geeyay suuqyada derivative-ka iyo coinkeena exchange-gaada haddii uu oolayo suuqa derivative-ka nooga xir ama exchange-gaada oo mararna coinkeena lagu trade garayo heer kaas ayay gaartay community-guna wax badan ay iska bedeleen waxaan dareemi karaynaa in stable coin-koodii ay doonayeen in ay dunidan kula joogaan dhinaca markay noqoto algorithm-kana wax weyn ay ka bedeleen oo nidaam kale oo cusub oo stable coin uu ku ahaan karo coinanka ku dul dhisan isaga naftigiisu ay u noqon karaan wada asad isaga stable coin-kaas dib usii ilaaliyana ay dhiseen oo mechanismka ama nidaamka
stable coinkooda uu ku dhisnaanayo oo ay wax aada u weyn ay ka bedeleen coin weli lays dhihi karayo janisyo ayuu daabici karaa ayuuna mar kale yahay una baahan bal goobaha janisyadan ka helayno inaan fiirino maalinta janis ka helna laakiin hadduuna dhaafo baawrkaaga dhaqaaqay wave marka iyada isaga naftigiisu isha inaan ku hayno ayaan u baahannahay waxaa kaloo u baahannahay in sanadkan aan isha ku hayno aster coin la yiraahdo oo 3 blockchain isku dhex jiro waa nidaamka ay wadaan xoogaa mechanismka ay ku kala aadeen ayaa kala duwan laakiin ha kala duwanaadee mechanismkiisa goobaha aan ka ishaaraynaya waxay tahay Japan oo asxaabul crypto waxay fara badan ka yaqaana dunidan dhinaca metaverse iyo dhinaca dunida crypto ayay platformyada companiga aad u weyn oo gudaha waddanka Japan horumarno ay la sameeyeen si aadana qaybta hoose maadaama aan kala socono developmentigiisa waxaanu dareemi karaynaa aster in dib mar kale u soo rogaal celin karo 4 sentimaanta in ka badan 2 jibaarka 3 jibaarka janis ah aan ka heli karayno meesha aan ka heli karno 2-3 jibaarne marna ma aynan ka tagaynin inkastoo crypto dhan ay isku wada beddelayso laakiin haddana platformyada hawsha xilli abaareedkan qoraya community isu yeeraya wax dhaqaajinaya ayaan isu celcelinaynaa oo fiirinayna marka dadka wax dhisay oo reer Wall Street iyaga naftigooda waxaa kamid ah coinkan Neo Protocol la yiraahdo isaga naftigiisu dibad u fiiri karaysaan platform smart contract isla markaana dunida web3ga doonaya in uu kaalin weyn ka qaato una ololaya janisyana ay ka jiri karayaan isla markaana aanu isleenahay ilaa $10 eriyadiisa janis ah ama ka heli doontaan ilaa $8 muxuu noo daabici karayaa 3-4 ilaa x in janis ah aanu ka helno near waxayna dareemaynaa weli howlahoodu inuu socdo dhinaca dhismaha iyo howlahaasi ah waxaanu heli karnaa fursad kale oo Casper dhalinyarada reer Hindiyaga naftigoodu waxaan dareemaynaa xogaa inay wax dhaqdhaqaajinayaan fursadana uu ka imaan karayo la isdhihi karo suuqu soo rogaal celintiisa kaalin weyn ayuu ka qaadan karayaa una baahan isaga naftigiisu inaanu isha ku hayno waxaan kaloo markaa isha aan ku qabanaynaa oo aan fiirinaynaa inaanu isla ogaano Tether network dhinaca dunida markay noqoto web3ga coinka hogaamin karaya kaalin weyn ka qaadan karaya nidaamka streamingka iyo maadooyin aad u fara badan oo dhinaca gaming streamingka ah isla markaana aad u muhiima lana filan karo ilaa $5 eriyadiisa in uu tagi karayo haddii janisyo ay imaadaan hadduu suuqu sii wanaagsanaadane mala aad u sarreysa oo ka weyn janis ah laga filan karayo la isdhihi karayo ilaa waxaan ka ogaan mar waa laakiin hawaashay ilaa $5 ilaa $7 weli janisya waanu dib uga heli karaynaa markay noqoto Tether waana coin aaminkiisu sarreeya dhinaca qorista iyo arrimahaasi Infinity ayaa isaga naftigiisu kamid ah coinalkan isla isaga iyo engine coin oo weli dunidaas aad ugu mashquulsan isla markaana code qoristoodu iyo arrimihii kale ay wadeen oo dhanba ay wada socoto la isna dhihi karo nimankan maadaama weli ay wax dhisooyaan fursad dib u rogaal celin ah ayaa ka imaan karaysa dunida NFT-ga iyo gamingka ayayna aad u daneynayaan engine coin oo dunida gameka oo qora dhinaca dunida ethereumka hogaanka u haya ayayna suuq u yihiin doonayaan jainka engine blockchainkiisa dhinaca gameka ah oo dhan inay isu xiran dunidan labada platform ee dhinaca markay noqoto ethereum iyo Polkadot ecosystemkiisa oo isagu naftigiisu waxba aad u fara badan ay ku dhex dhisan yihiin abla dhinaca gameka waxaan leeyahay coinankaas dib u fiiriya fursadahaas ka faa'iideysta insha Allah haddii ay yiraahdo waxaan leeyahay kulliba janisyo way noo wada daabacayaan 2-3-4-5 kale oo kamid ah in si fiican aan uga ilaa hadduu eebba qadaro janis aan uga heli karayno ayayna u muuqan karaysaa adiga aragtidaada qaybta hoose noogu reeb ma jiraan coinan aan isleedahay bal sanadkan ishaan ku hayaa inay nagu bataan waan isleeyahay laakiin link oo aad og tihiin isaga naftigiisu iyo Polkadot waxay noqon karaan iyaga naftigoodu eriyo janisyo bixin karaya laakiin qiimahan xoogaa ka yara sugno linki waxa waaye systemkiisa staking waa u bilowday dhinaca markay noqoto smart contract-diisii kale iyo howlo kalena waa ay wadaan waxaan isleeyahay dhinaca dunida Oracle-ka isaga iyo KD Cardano isaga naftigiisu
isha ku haya fursada dhinaca markay noqoto soo rogaal celin ilaa iyo percentage kale in dib aan uga helno ayaa macquul noqon kara isaga laftigiisu sanadkan oo suuqu hadduu soo noqdo coinkan proof of work maadaama hadda ay ku adkaysteen nidaamkooda proof of work smart contractyadooda waan arki doonaa laakiin isaga naftigiisu coinanka isha lagu haynayo ayuu ka mid yahay bal isagana fursadihiisa iyaynan dayicin coinankaas ayaa isleeyahay asxaabay isla wadwadaaga sii fiiriya idinkuna coinankii kale aad isdhihi karaysiin ama fursado weli ka jiraan waana macquul isaga naftigiisu coinkan ethereum classic oo dhinaca markay noqoto proof of work in fursado ay ka imaan karayaan janisana weli laga filan karaya markay noqoto dunida dhinaca markay noqoto smart contractyada inkastoo developmentigiisa hadda godad kale uu gelayo waxaa jira cosmos coin kale ayaa jira oo layer 1 ka mid una baahan in si fiican aad ula socotaan waxaana la yidhahdaa atom fursado fara badan ayuu bixinayaa waxa uuna leeyahay taa mararka qaar coinan lagu soo dhaxdhiso platformyadiisan dhinaca markay noqoto dunidiisan ev wuxuu isticmaalaa wasam wax la dhaho ama wasm blockchain isla markaana coinan fara badan isaga naftigiisu janisyo ku leh laakiin cosmos waxaan isleeyahay weli fursado ayaa laga heli karaya ama atom 2023 ilaa iyo 2 ilaa 3% in ka badan inaan ka helno iska macquul ereyadiisa sodomiyada dunootiga waayo xitaa ilaa iyo ereyadan 20 inaan ka daabici karayno wanakis ilaa 2 insha Allah idinku la siyaageega kulleyba waxa uu u muuqdaa coinanka fursadaha badan bixin karaya isaga naftigiisu crypto media nagala socotaan asxaabtaada la wadaag aragtida qaybta hoose noogu reeb oo the hebel zeedka waa dawaqdo coinkeygii ka tagtay ina waa dhici kartaa qaybta hoose aragtidaada igu soo reeb kulleyba waxaan isleeyahay sanadkan sanadadii hore kala maaha ma la dhihi karayo bud fiican in la qaato balbahalada 10 xabo ama 3 xabo 5 xabo laga soo qabto xawaajaani si far badan wada bixi doonaan xilli abaareedku markuu yimaado qabtu dhacdo kor iyo hoos waxa waay kii aad maalinta qabta dhacdo ereyadeeda ilaa iyo 3 maalin 5 maalin 6 maalin aad ku soo gaarto bilqadiisa waxuu ka wanaagsanaan doonaa uun mid walba oo aad hadeertaan tiraado warno ama kaas u sii warhaya insha Allah duu eeba nafta lagu simo waa wada gaadi doonaa maalintaas kulleyba dhinaca telegramka aad imaan karaysaan asxaabta qaybta dhinaca markay noqoto commentiga kusoo qaadata calaamada markay noqoto crypto Somali Media iyo WhatsApp nagal soo xiriira asxaabay ma jiro xawaayo waxaan isugu nimaadnaa meesha telegramka halkaasaan ku baashaali karnaa asxaab fara badan ay joogtaa adoon bani laga qaadin asxaabta koorsada dhigato ustaadkiga waa kasbar aad uga mahad celinaya iyo baahda kale ee hablaha noo soo qaban qaabiyo koorsooyinkaas lacag la'aanta wad dhigan karaysaan asxaabta soo buuxsatay fadlan waxaa jiro linkiga telegramka oo la idin sameeyo oo gaara asxaabta koorsadaas qaadanayso waad tegi karaysaan waad u warhayn karaysaan casharadaas kulleyba xilliga macalinku live video kugu yimaado idinkaa wada sheekeysanaysaan wixii aad isfahmaysaan wixii aad duuba karaysaan bani cidna aysan kugu jaajgaraynaynin uu tahay qora qof Soomaaliya jeebkiisa waxa ku soo kordhan meeshan waa hawdkuna ma wanaagsana in lagu fogaado waxaan fiirinaynaa qaybihii dambe ee suuqa iyo xaalkiisa aan dareemi karaynaa darbigii 20,700 in uu bitcoin noo marayo 1,500 iyo jajab ethereum bala hawaayo aduba dhacleed oo yar korto dhan 4 saac la soo dhaafay dhinaca gainka ama follow Solana hogaaminaya Helium rajo fiican soo gasho lisiraamo Solana hore u raaca FTM kamid waxa kamid Filecoin ICP oo dunida web3ga inuu u guuray isaga laftiisa kamid fiiriya balka dood arkayna near Tezos apt mana iyo the graph isaga naftigiisu asxaabi the graph fiiriya insha Allah coin kan yarti la yiraahdo ku darsada listiga isaga darsada kulleyba idinka dawaad screenka waad arki karaysaan oo idin sameeyeen screenka aad aragtaan si marka ku dhawaaqayo iyo qoraalku inay iskeeni waayaan macquul noqon karto dhahabal qofku ha arka bal waxa ku dhawaaqayso si ugu fudaato waxa aad sheegayso qaybtan dambe ee geeskiga inuu ka dareemi karayo dhigi karo kan miya ahaa saas oo qorma okay isagana ku darsada waxa isleeyahay
momentumyo waa leeyahay platformkuna dhismo waa uu ku socdaa maaha dad iska seexda marka raggan waa rag soo jabhadeynayo goob fara badanna weli kala jooga haddii xalaheed platformyo markay noqoto dhinaca markay noqoto Polygon Harmony Avakis Arbitrum waxaan u malaynaa waa idila wadaagay aeroobkiisa sidii loo setup garaynayay isaga naftigiisu la socda energy weba ku dhex jira iyo Sora blockchain kala duwan ay ku kala jiraan wana la socda waad ogtiina malaynaa 2022 wan buuqa ka dhacay dhootugi laakiin way dhameeyeen marka waxaan isleeyahay community maadaama la heshiiyay Harmony isaga naftigiisu saabay bal warhaya isbedela ayaa dhacay leeyihiin Harmony Bridge 2024 June 24 forumkii sida looga heshiiyay noo tilmaamayaan lacagtii luntay ka warhaya coinkan waxa waaye in uu Janis soo bixiyo macquul waa geeri culus waa gaartay laakiin hadaan dhahno fritonkii maalmood la soo dhaafay la soo jaray okay horta hal senti waa imaaday laakiin hal senti ka badan ilaa iyo 10 senti abala hormu ka noqday 2 senti okay abar badan oo ka maqnaa saxaada laakiin insha Allah waa April 2020 bishii uu joogay xataa duwi maada 10 senti waxa waaye nimcan ku dhex jiraysa laakiin adigu ka soo agdhawaana insha Allah warhay ilaa iyo 5 senti ila African kiisu daabici karaa isleeyahay Harmony isku ku hay xisaabtaas ka qaldin as dheeraha waaye hal mar ay soo booday laakiin halkaas ka script al hadii lagu dhex jira dar wax la ka soo dhaxbaxayo asxaabay wixina waa un Janis yani bixinayaan maalmaha adeega ilaa bisha 3 intaan ka gaarino insha Allah aanu dib u milicsano sadahno bal kuwii hore inta jooga 2022 waalidin xiro kiiskiina ama qasaar ku jira ama abaar ku jira maalintii ay baasho waalato aanadaas wax la idinku daro idinka waalidin fiiriha hadda sanadkan kuwana la bilaabeena waana arkaynaa meesha noogu xirmaan inkastoo aad u tiro badan yihiin way soo celinayna fursadahooda kuwana is dhigi karayno kuwana ugu wacan oo si gaar ah aad uga faa'iideysan karaysaan in aad uga faa'iideysanayna maxaan ku diideynaa la dhaanaga waxa meeshan crypto la dhex joognaa adduun kale ma ahayna aan crypto dhex joogayna ku dhex noolnahay marka adduuna riba la saari karin iska qeer hada adiga aad laakiin qaybta la saarada doonto deetaas wareer iska waay ka sugta kala waysan noqonayso meeshu waa out kuma wanaagsano aragtida qaybta hoose igu reeb insha Allah coin ka tagay isoo aragtida waa nagu reeb kartaa qaybta faalada meeshu waa out warwalba sheega out waaye shakar badan tahay ku fogaanin fursadahan ayaan la dayicin muhiim waxa ah fursada sidii xabba xasan tooxo waxa fursadii waa mar quraminad fursadu waa muhiim isha ku haya insha Allah bagacmaha noo soo geliyo fursadaha 2023 inagu ka faa'iideysanay oo wada faraxsan hawdkana ayaan lagu fogaan boqol sano midkii jiray buuxsha aga buuxsamay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso